Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkani waxaan idinkugu soo gudbin doonaa 8 dabeecadood oo ay leeyihiin dadka xanaaqa badan. Weligaa ma dareentay farxad la'aan iyo xanaaq joogto ah oo aan sababtiisa la sharxi karin? Waan ognahay in qof walba uu u qalmo farxad ku filan, balse ay jiraan caqabado badan oo horyaala. Nolosha oo gaaban iyo in aadan wax u heli karin sidii aad rabto waxay ka mid yihiin sababaha caadiga ah ee farxaddaada hor istaagi kara. Hase yeeshee, kuwaasi waa arrimaha la socda nolosha ee qof waliba laga doonayo inuu la qabsado. Waxaa jira dabeecado aan yeelano oo noo sababa inaan farxad u heli weyno sida dabiiciga ah. Waxaa muhiim ah inaan iska dhaafno dabeecadahaasi. Haddaba, maxay yihiin dabeecadahaasi? Waxaad ku daawan doontaa muuqaalkani. Nambar 1. Cabasho badan. Dadka farxadda badani ma cabasho badna. Dadka nolosha guulaha ka gaarana waa sidoo kale, oo ma jecla inay wax walba ka cawdaan. Qofka dacwada badan waa qofka xanaaqa badan, kamana fikiro inuu farxaddiisa ilaaliyo. Nambar 2. Eed badan. Ma ku jirtaa dadka eedda badan? Ha ahaato mid ay naftaada u soo jeedisay ama mid ay dadka kale eedayso. Wax walba ha qoonsanin, haddii kale farxaddaada ayaa guuraysa. Waxa aad ahaanaysaa qof mar walba caraysan, waxa aan dadka kale dhibinna way ku dhibayaan. Nambar 3. Waxay ku hamiyaan waxaysan awoodin. Waan wada jecelnahay inaan si degdeg ah guul uga gaarno nolosha, laakiin ma ahan inaad hamigaaga ku xirto waxa ay dadka kale haystaan oo aadan awood u lahayn. Tusaale ahaan, noloshaada oo dhan ha ku xirin helitaanka gaari qaali ah ama guri aadan iibsan karin. Haddii aad dabeecaddaas yeelato, weligaa ma faraxsananaysid, waxaadna ka mid ahaanaysaa dadka xanaaqa badan. Nambar 4. Balwad xun. Waxa aan ahayn cuntada iyo cabitaanka caadiga ah ha caadaysanin, si aysan kuugu noqonin balwad xun oo farxaddaada la tagta. Noocyada ugu xun ee balwadda waa maandooriyeyaasha kala duwan ee ay dadka badanaa isku lugooyeen. Xanaaqaagu joogto ayuu ahaanayaa mar walba oo aad balwaddaas tabayso, dadka kuugu hareeraysanna khatar ayaad ku tahay. Nambar 5. Qoomamaynta. Haddii aad tahay qof ka qoomameeya waxyaabihii la soo dhaafay, ma qaadi kartid tallaabo horumar leh oo aad farxad ku heli kartid, maadaama aad ka xun tahay waxa tagay oo aan waxba laga beddeli karin. Tani waa dabeecad xun oo xitaa sababi karta inuu qofka dib u dhac weyn sameeyo. Nambar 6. Welwelka mustaqbalka. Ka waran qof mar walba ka murugaysan xaaladda uu la kulmi doono dhowr bilood ama dhowr sano kadib. Qofkaas ma heli karaa farxad dhammaystiran oo ma ahaan karaa xanaaq la'aan. Waa inaad go'aanada mustaqbalka u dayso Allihii ku abuuray. Ha ka cabsanin natiijada dadaalka aad samaynayso, hana dib u dhigin fulinta riyooyinkaaga. Nambarka 7. Xanta. Qofka dadka kale xanta waxaa haysta kalsooni darro uu ku qabo naftiisa. Haddii aadan ahayn dadka farxad la'aanta ah, waqti uma helaysid inaad ku mashquulsid arrimo ku saabsan qofka kale. Xanta u daa carruurta tartamaysa, adigana noqo qof weyn oo ka fikira horumarkiisa. Nambarka 8. Cuqdada ama xarashka. Wax fiican iyo wax xunba waad isla maraysaan dadka aad ku aragtid nolosha. Qofka ugu sharafta badan ee bini'aadamka waa midka iska ilooba xumaatadii dhex martay isaga iyo ruuxa kale. Haddiise aad tahay qof cuqdad badan oo xarash u haya qof ay sanado ka hor xumaato dhex martay, waxaad ka mid tahay dadka xanaaqa badan ee dabeecadda xun, farxadna ma helaysid. Iska ilaali inaad yeelato 8 dabeecadood midkood. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.